هذا وحال سوق على قيمتي ضيضة وحامير أن هرين ولا مشاعر برنامج كان أنت بان وحاكسو شقيسين اليوم سنة كان وحي كلام بينا وحنا عين بشان قولي كما الله يصطي ضيضة لوني بسؤال الأضيفة هذه مدة اللي هو تاجين نيلا مركز this is the last and وحامير يا نبغى هذا الدورة ضيضة أو لمجلس المحيطين أو لونا عن سكورنيل محيطين سبيو وحاولت فرحت وكم متنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm last but not least. marka horeysa waxa weeye odayaashu waxay noo gadaal mariyeen waxay rabaan wax kasta inay noo gadaal mariyaan saas marka horeysa ilaahay waa maadka marka waxaan mahadcelinayaa dadka soo qanqaabay xafladda sharafta waxaan kaloo mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay oo isaga yimid meel kasta waxaan salaamayaa hooyooyinka aabayaasha gabdhaha wiilasha dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan ka soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlahaya afka ururka dhalinyarada soomaaliyeed khaas ahaan kuwa ka yimid gobollada puntland waxaan rabaa hambalyo anaanka dhinacaadahan oo naga diro dowladda puntland oo xilliga ay ka soo wareegtay 16 sano markii la aasaasay puntland 1998 bishii sideedaad waxaan leeyahay hambalyo ummadda reer puntland meel kasta joogtaan waxaan salaamayaa madaxda puntland khaas ahaan madaxweynaha professor cabdulle maxamed cali kaas waxaan leeyahay madaxweyne waa soo dhaweynay gabaygaagii iyo go-aankaagii waxaan salaamayaa shacabka reer puntland oo jooga dalka gudihiisii horumarka iyo cadaaladda iyo nabadda puntland ee ku faanaysa waxaa lagu gaaray shacabka iyo ilaahay weynaa waxaad tihiin dad fiican oo nabad jecel waxaan leeyahay waa inaad dowladda ula shaqaysaan sida ula shaqayn jiray dowladihii hore si loo gaaro 5 sano oo soo socota waxaan adeegsanayna waxaan salaamayaa jaaliyadda puntland oo ku nool dalka dibaddiisa khaas ahaan waxaan la hadlayaa ganacsatada maalgashanaya kenya zambia tanzania iyo meelo kale waxaan leeyahay dalkiinni maalgashada dowladdiinna cashuurta siiya dadkiinni lacagta siiya ninka kenyaanka oo gabadha soomaaliga oo mulasa ku xiraya xabsiga oo buudka kula tumanaya mushaarka wuxuu ka qaataa ninka soomaaliga cashuurta laga qaado runtii waa wax laga naxo oo farxun waxaa weeye ninka wuxuu la mid yahay nimanka falastiin ku bixinaya carabta oo bixinaya falastiin lacagta ku bixinaya in la laayo iyo isagu more different waxaa leeyahay marka aamina dalkiinni oo ku laabta oo maalgashada oo asaga waxaa u baahan tihiin keena oo asaga sharaf ku yeesha saamiga wixii ka dhacay waa daawada isticmaal shan boqol oo ku maalgashaday waddanka baa askari intuu halkaa qabtay buu wadada ku jidaya wax sharafa kuma leeyahay waddan kale waddankaaga waa sharaf ku leedahay waxaan salaamayaa dadka wax bartay oo jaamacadaha uga baxay waddamadan waxaan leeyahay forsaamo madaxweynaha puntland professor cabdulle maxamed cali kaas wuxuu ahaa nin jaamacad ka dhiga dalka maraykanka mushaar fiican kuga qaadan jiray wuxuu ka doorbiday inuu dadkiisii caawiyo ilaahayna waa la gargalay waxaan u baahanahay 500 oo qof oo jaamacada ka baxay ciyaalkiinni xaasaskiinni waxay joogaan waddamadan waxay haystaan firiic caafimaad waxay haystaan waxyaalo kastoo ay u baahan yihiin dad waxaa jira jaamacad dhiganaya oo aan qalinka gadan karin waxaa loo baahan yahay inaa caawisaan at least bishii ama halkii sano 6 bilood inaa firi kusoo gudtaa jaamacadaha waa iga taba waxaan salaamayaa dhalinyarada maadaama aan ku hadlahayo magacii dhalinyarada soomaaliyeed oo kusoo koray waddanka ama kuwa ku dhashay nasiib darro maalin wiil baa la kulmay waxaa xagee ka timid wuxuu yidhi I'm from Toronto waxaan isweydiiyey oo ka naxay isagoo du Toronto ka yimid ilmuhu dhal doonaa xagee ka imaan doonaa shabiibku ka imaan doonaa shabiibku dad Soomaaliya nahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay dhul baan leenahay sharaf baan leenahay af baan leenahay waxaa loo baahan yahay dadka waalidiinta ilmaha dhalay inay ku ceshaan dalkii si ay u bartaan dadkoodii iyo dalkoodii iyo meesha ka yimaadeen waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa wax laga xishoodaa maxaa naga qaldan dhalinyaro ma isweydiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxaa weeye waddanka jooga kuwii gudaha joogay
ilaa 1990 isbaarada waxa dhiganaya dadka loo adeegsanaya waa dhalinyaradii waxa soo dadku ku gowracayaan waa dhalinyaradii badda wax ku dhamaanaya waa dhalinyaradii waxa kanada xabsida ka buuxa waa dhalinyaradii maxaa laga qalda bees weydii waxaana si daraa 1980 ninka xildhibaanka Soomaaliya ka ahaa ilaa hadda xildhibaanaya oo wax bedel u waayay maxaa keenay waxaas dhalinyaradii Soomaaliyeed aan malahan mar rabaan ay wax qabsadaan inay wax noqdaan mar rabaan kii dalka gudihiisa jooga ku raaso oo carab lahaa kii halka joogeen kii shaqeystaba ka shaqeysta iska wadaa kii shaqeysta laba kun shan ku shaqeysta xagaas tagaya meesha shaqadu iska fariisanaya wuxuu qabaa inuu waxa weeye adduun soo dhimanay saas ma aanu saaxib waxaa loo baahan yahay inaan dad noqono dad baan leenahay annaga halkaa baan joognaa haddayna iska qaadan waddanka isu qaadan kuwa xagga jooga soo cararaan waxaa imaanaysa 120 ka badiyay oo geestan ku haya iyo 70 ka badiyay oo geestan ku haya inay ku ruuxsadaan waddankeeni hadda qariirada Soomaaliya laga tirtiro waa imaanaysa waayo waddanka annaga aska هذا مدحونا عبد الله وجرى يا صلاتك مدحوين أسأل وقوي وذكر وحاول ورحمة واحد يكره وابي وحاول تكره وونجين وحاول وذكر وسيلة أيام أنا أسأل وحن كذا على ذكر دوري شخص شنو الله عطسنا ولا سلين هيو المهم هو حنا حيان بورصنا وإسقاط يتريب وكتير هذا وعلى سدرا أدون بوحة وسقاط وحنك هذا وسط المتربون كارتين أبغى نقول يجود أسكان أنا قا اليوم الصباح أنا هاي ما له يجود صاحبنا هاي وأخوينا يشتري أخوينا هاي أو عارفني وبالكار يعني ولا هذا ولا يلا يضك صباح كذا يقول لي وقت ما هي أنا وقت ما هي كذا ما كنت عارف أروح أقول أروح كتير وقت أيضا من كي ومنها كفي عيني تصور تقول سوي في عيني لكن مرة قبل وقت وايد لكن لازم وقت وايد فهو على قد الشغل رمتي ضل كامل اسكال ما انت يرد ذكر عيبان انا يرد بريد من الناس قال هدي انا مسلم ما قال هذا ربطان من هذا المهم وقت عن هذا مثل جونا اسكت الشغل والله فريمون اندريا ضد حاجه جوا على انا مسلم ضبطي انا غير مؤمن أنا قبل أن جونا وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى عن حرمتي وحبشتي أمني في هذا الأمر اللي يربي. أفكر فكر كراوس كيل يعني أروح الله أما ذاك وحبطه أفكر بيكون لي هاي وكروا أنا بحاول ترتيب أما فاهم الكيسة رش أسمع وأبغى أمر وأبغى ساعة على وسع كبير أنا كشخصي دم تضلك لضدك هذا كي يكون مسوق كبيرية dhalinyaro aan noqono dad leh isku xiraan ma aha dhalinyarada kaliya ku tabaala dhalinyaro Soomaaliyeed dadka anaga aska waxa loo baahan yahay sanadka dib u noqon lahayn wuxuu bedel lahayn dad u noqon lahayn hadii kale waxa weeye sida dadkaas oo waxa ku dhacsan anaguna meel kale aan ka nimaano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh برنامج هذا هو ما حتى كنت بدل ما في الاستاجر على صوت qaybtaas waa inoo dhamaatay waxaan ku rajinaa qaybtii dhalinyarada iyaga inay soo istaagaan halkan si ay qaybtooda uga wareegaan